asalka Soomaalidu halka uu ka yimid oo wax badan la iska weydiiyay dad baa aaminsan Soomaalidu inay Carab tahay qaar kale aaminsan inay meel kale ka timid isaga inoo sheegi doona waxa ay khubaradu ka yiraahdeen marka 1493 dhalashadii Ciise ka hor waxaa jirtay safar ay soo dirtay boqoradii la dhihi jiray Xashab-Suud oo ahayd ka tirsanayd boqortooyadii 18aad ee dhaxalka ahayd ee Faraacinada safarkaas oo lagu imaaday markaas dalka Soomaaliyeed ee markaa loo yaqaanay Punt waxa ay saan la soconay Faraacinadu ay la lahaayeen xiriir Soomaalidaas hore waxay Soomaaliya u soo doonan jireen fooxa waxay u soo doonan jireen malmalka fooxaas oo ay u isticmaali jireen macaabidooda meelaha ay wax ku caabudaan iyo malmalka oo ay u isticmaali jireen taxniidka moogta sida loo conserve gareeyo ama loo dhowro jidhka qofka bani aadamka marka uu dhinto maaragtay marka waxa waaye safarkaas ay ku yimaadeen marka dalka waxa waaye waxa lagu xardhay oo lagu sawiray oo la qoray lagu qoray meesha la yiraahdo Deir al-Bahri oo ku taala Wadi al-Muluk maaragtay oo Masar tilaabadii ku xigtay oo ku saabsan wixii qoraal iyo wixii information oo Soomaaliya ku saabsan oo ugu muhiimsanaa wax qoraal oo Soomaaliya laga qoro oo cad wuxuu ahaa qoraal la qoray oo ninka qoray magaciisa aan la aqoon laakiin uu ahaa nin badmaaxa ganacsigana xiiseynayo oo reer Alexandria yaa wuxuu qoray qoraal lagu magacaabo The Byblos of the Eritrean Sea nuqulkaas ninka uu qoray waxa laga helay qarnigii 15aad jaamacadda Heidelberg bibliotekeeda halkan British Museumna waxa yaala nuqul baayalo nuqulkaas ama qoraalkaas wuxuu ka koobnaa 7500 oo eray uu ka koobnaa wuxuu ka warbixinaa oo uu soo maray wuxuu ka soo tagay badda cas wuxuu soo maray xeebaha Soomaalida magaalooyinka markaa jiray ganacsiga meesha ka jiray dadku waxa ay dhoofinayeen dadku wixii inta la soo qaado dalka la keenayo oo loo keenayo maaragtay badeec ahaan loo keenayo wuxuu kaleeto uu ka hadlay oo warbixin ka bixiyay dadku inay nidaam dhaxaleeyeen iyo inay ku xidhxidhan yihiin meelo kale oo ka baxsan Soomaaliya xagga administrationka ama maamulada maaragtay tilaabada ku xigtay oo ayaduna macna sameynaysa waxay dhacday 8 qarni kadib qoraalka ninkaas uu sameeyay waxayna ahaayeen badmaaxyadii iyo juqraafiyiintii Carbeed oo iyagu markaas Afrika soo aadeen waxa waaye markaas dadkaas iyaga ah oo juqraafiyiinta oo Carbeed waxay socotay socdaaladoodu ay socdeen oo ay Soomaaliya imaanayeen ilaa ay qarnigii 15aad bay imaanayeen dadka marka deegaankan wax ka qoreen oo Carabta oo xilligaas haddaan xoogaa magacyadooda wax ka taabano waxaa ka mid ahaa Abu Zayd Hassan in la yiraahdo oo qarnigii 9aad isagu yimid oo wax ka qoray waxaa ka mid ahaa Ibn Khurdaad Bey oo qarnigii 9aad qarnigii 10aad ahaa waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Istakhri oo qarnigii 10aad ahaa qarnigii 14aad Ibn Battuta qarnigii 14aad iyo Bakawi qarnigii 15aad ilaa qarnigii 15aad baa sahanadaasi ay socdeen oo juqraafiyiinta Carabta ay dalka ku imaanayeen dalkan inta aynan anagu Soomaali caadi aan noqonin magacyadii uu dalkani lahaa iyo haday macno ay anagana siin karaan inaan maaragtay fiirino magacyada dalkan uu yeeshay waxa kamid ah Punt waxa kamid ah Azania waxa kamid ah Bilad al-Ajam waxa kamid ah Berberi waxa kamid ah Zinji marka haddaan qaadano magaca Punt waa magac associated la ah marka aad fiiriso qaabka ay u fakari jireen Faraacinadu waa magac associated la ah diin hay'ad ama waxay dhihi jireen waa dhulkii ilaahiyada ama waxay dhihi jireen waa dhulkii awowyaalka marka wuxuu ahaa dhul oo si sakre ama qanaf Soomaaliga si oo fakar oo diini ah oo xurmo ku jirto ay Faraacinadu u arkaan maaragtay deegaankan hadda Soomaalidu ay degan tahay gaar ahaan qaybtiisa oo waqooyiga oo Puntland iyo zoonaha ku aadan marka waxaan halka ka fahmeynaa marka magacaasi inuu magac xambaarsan caqiido oo ay maaragtay
magaca ku xiga waxaa waaye Azania. doodo badan baa ka taagan dhulkan oo xeebta oo Soomaaliyeed oo dhinaca Indian Ocean u jeeda waxaa ku ooli jiray rugo biyaha doonyaha loo dhigo cunnada loo dhigo dhuxusha loo dhigo marka waxaa la dhihi jiray Bahr al-Khazaa'in marka Bahr al-Khazaa'in kaas corruption buu galay magacu wuu isbedbedelay wuxuu gaaray ilaa iyo Europe iyo Greek gaaray marka deformation kaas oo Khazaa'in kaas wuxuu noqday Azania sida ay qabaan culimada qaarkood oo afafka maaragtay ka shaqeeyaan bilaad al-Ajam marka ka asaga marka dhul buu sheegaa marka waa xeeb shacab ma sheegayo qabiil ma sheegayo maaragtay haddaan aragno marka tagno marka bilaad al-Ajam macnaheedu waxa waaye waa wadan dad aan carab ahayn ay ku nool yihiin ayadana wuxuu sheegaa dad aan carab ahayn dalkood buu sheegaa Berberi waxa waaye waa magaalada Berbera iyo deegaanada ka koonfur ah ayada oo laga xukumay iyo magac ahaan ayadana dadka loo siiyay marka waxa waaye magac magaalo halkaana ka soo baxay waxa marka raaca Zinji marka Zinjina wuxuu sheegaa dad madow moogta deegaankan ay dad madow ay ku noolaayeen marka magacyadaas inahaas baa laga bixi karaa fasiraadooda marka qofna ma sheegayaan qabiilna ma sheegayaan waxay sheegayaan midab waxay sheegayaan dhul iyo xeeb waxay sheegayaan wax oo maaragtay caqiido ku salaysan waxay sheegayaan dad aan carab ahayn waxay sheegayaan magaalo marka aan soo socono marka magaca Soomaaliga ah oo markii ugu horeysay oo la maqlo wuxuu ku jiraa hees xabashi ah oo Soomaalidu ay ku jirto shucuubtii laga adkaaday moogta oo qarnigii 15aad waay maaragtay 1414 ilaa 1419 waagaas markaas Ethiopia ama Xabashi marka Ethiopia ma jirin dhulka Xabashida waxa ka talin jiray in la dhaho boqor la dhaho Yashaq isirkii Soomaaliga markaas waxyaabaha maanta jira iyo sida loo arko iyo sida aaraadeeda iyo fakarkeedu uu qaybsan yahay waxaan umaleynaa dad badan oo idinkeeda kamid ah in aad iskala socotaan labo nadariya jirta moogta ama haddii kale waxaa jirto laba iskuul ama dadka carabiga ku hadla laba madraso marka labada fakar mid waxay qabtaa dadka Soomaalidu inay yihiin dad koyta moogta ama afkaan laatiinka alocton dad oo maaragtay banaanka imaadeen oo meesha ay degan yihiin banaanka uga yimid dadka ayaga markaas waxay noqdaan oo ay kala haystaan oo ay ku fasirayaan dadka Soomaalidu inayna ahayn dad deegaan ah oo dad yimid ay yihiin qaybta ugu horeysa waxay ku leeyihiin dadka Soomaalida muuqaalkooda marka la fiiriyo iyo waxyaabo kale oo ay istustuseen dadku waxay ka yimaadeen waa qowqaasiin moogta marka qowqaas waxa la buurahan dheer oo Turkiga maro oo wadamadan Aasiada dhexe maraan dadka degan bay marka ayagu ku cabirayaan physically markii midabka laga reebo dadka muuqaalka inaan ayaga u egnahay marka dadku inuu ka imaaday qowqaas markay qorayaan waxay leedahay dadku waa qowqaasiin dadka meesha degan qaybtaas waa qolo qaybta labaad oo qabta in la yimid dalka waxay leedahay dalka waxa deganaa jiray Bantu maaragtay dadka Bantuga oo meesha deganaa oo ayagu ku sugnaa oo reer guriga ah waxa ka yimid jasiiradda Carabta Oromo oo Arab ah moogta Oromadii dalkay timid waxay riixeen maaragtay dadkii Bantuga bay riixeen marka kadibna waxaa yimid haddana hir kale oo Soomaali ah baa imaaday isaguna markiisa wuxuu riixay Oromadiina waxay sii riixday maaragtay Bantugi qolada saddexaad asalkooda iyo sheekooyinka iyo doodaha ugu xoog badan waxay ka imaanayaan ragii hadda aan ka hadlaynay ama culimaha noqdaano ama odayaalka oo qabiilooyinka madaxda oo ha noqdaano ama odayaalka sheekooyinka dadku ay isu sheegaan xoog u haya waxay qabaan dadka ayaga ah magacyada caadiga oo la yaqaano oo qabiilka ah maaragtay waa dir waa daarood waa digil mirifle
maaragtay hawiye markii magacyada la gaaro abtir oo fantaziya oo fara badan oo markaas galayo in leeyahay carab yaa badi samaysan de moogta marka haddaan case u qaadno de moogta case loo qaado waxa waaye haddaan eegno dir oo kale qabaa'il badan oo dirta ka mid ah ama guud ahaantooda waxay sheegtaan in ay ku abtirsadaan cali bin abi talib markii la dhaafo dee dirta moogta daaroodku markii daaroodka la dhaafo waxaa u rakiban ayagana khad yar oo caqiil bin abi talib la galo hawiyuhu waa la mid hawiyaha dee hadda dynamismkan oo qabiilku u isbedbedelaa qabiil ani hadda dee aan marka hore u aqoonin hawiye laakiin hadda hawiye مثلا sheekhaal oo qudub oo kale marka laga hadlayo burtun marka uu imaanayo Soomaaliya waa 1800 iyo kontonkii meelahaas aan maleynaa wuxuu ka sheekeynaa sheekhaal oo dhan maaha sheekhaal oo qudub ka sheekeynaa marka wuxuu leeyahay culimadaas oo magaca leh abtirkooda wuxuu galaa Abu Bakr as-Siddiq moogta marka abtirka hadda aan sheegayo hawiyaha guud ah markaas ayagu marka ma galayaan ayagu Abu Bakr bay galayaan waxaa kaloo jira nin oo dariiqadan oo maaragtay qaadiriyada nin caan oo weyn ahaa oo la dhaho Sheekh Abdullah Qudubi moogta Sheekh Abdullah Qudubi buug boqoray la dhaho Nasrul Mu'minin moogta marka Nasrul Mu'minin waxaa ku yaala abtirkiisa moogta marka abtirkiisa wuxuu galaa Abu Bakr ayaa digil iyo marifle markii aan imaano qabaa'il fara badan oo waxaa jira ayaga kamida kulligood waxaa laga yaabaa mararka qaarkood waxaa la dhahaa moogtahay digilkan iyo marifle iyo sab iyo marba waxaa la dhahaa de abtirka hadhow baan arki doonaa hal meel buu ka bilowday moogta laakiin halkan dabaraha dadka la dhaho oo digilka ah waxay ku abtirsadaan ayagoo digil ah moogta waxay ku abtirsanayaan Uthman bin Affan moogta waxaa kaloo digilka iyo mariflaha ku jiraan oo kamid ah dadka la dhaho galadiga boqortooyadii afgooyay zoonaha ka jirtay ayagana waxay galaan saxaabi oo asxaabtii nabiga kamid ah dad qoliyo fara badan oo ayaga kamidna saxaabiyiintaas ku abtirsadaan waxaa kaloo kamid ah ashraafta moogta ashraaftan la dhaho sarmaan ayaguna waa ahlul bayt waay marka qabaa'ilkaas hadda la yaqaano oo waaweyn aad ka timaado waxaad imaanaysaa qabaa'il kale oo qabaa'ilka u badan magaalooyinka iyo xeebaha dadka degan oo iyaga marka kriteeriyadii immigrantiga ama hijradii banaanka laga imaaday ay ka muuqato markaad ama baraawo tagto ama xamar aad tagto ama marka aad tagto waxaa jiraan ashraaf baad ka helaysaa ama xasan bay ku abtirsadaan ama xuseen baa lagu abtirsanaa waxaa kaleeto markaad timaado waxaad ka helaysaa markaas duruqba oo kale moogta qabiilka duruqbaha la dhaho duruqbe waa Cumaan waxaa jira qolyo baabaa magacyaalkooda uu ka bilowdo baa Cumar waa xadaarimo waay dadkan reer faqiga la dhaho oo diinta iyo maaragtay shuyuukhda ka xamar waa qaxdaaniin waa Yemen marka waxaa waaye ayadoo marka aragtiyaal taas oo dhan la ururinayo Soomaalidu markaas Arab League way ku jiraan maaragtay jaamacadda Carabta halkaas Carab bay gashay moogta iyadoo marka sidaa loo degan yahay baa islaamku dhashay moogta islaamku markuu dhashay dadka Soomaalida waxay noqdeen dadkii diinta islaamka xambaaray faafiyeen haddana galbeed la aaday wadadii ayagu ay ku yimaadeen dib oogula noqday ama koonfur ha noqoto ama dhinacaan oo maaragtay Itoobiya loo aado dadka Soomaalida yaa faktarka faafinaya diinta islaamka ah marka anaga intaasa lagu darsanaa laakiin waxaa waaye aaraadu marka dhinac fiiriso saa isuma diidayso moogta marka qaybta hore marka oo presentationkeena labada iskool baa jira iskoolka cilmiga ah wuxuu leeyahay dadka Soomaalidu waa afka ay ku hadlaan waa af Afrikaana muuqaalkeena markaad fiiriso 3300 kilomitir oo xeebaan leenahay
hinda imaan kara